kulanti wanaagsan daawade halkan waa janalka madasha wararka ku soo dhawaada wararka madasha qodobadana waxa kamid ah al-shabaab oo culayskooda isugu geeyay gobolka Shabeellaha Dhexe ma dhaba in Axmed Madoobe uu doonayo dawladda federaalka uu kaga hormaro qabsashada magaalo la doonayo in maamul kale looga dhawaaqo maxay ka tiri dawladda federaalka duqeyntii diyaaradaha Mareykanku ay ka geysteen deegaanka Dujuma ee gobolka Jubbada Dhexe ma dhaba in ciidanka dawladda federaalku ay ku sii siqayaan fariisin ciidanka Jubbaland ay ku leeyihiin xuduudka Mandera ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya iyo dawladda Ruushka oo war ka soo saartay saldhig military oo ay sheegayso in ay ka samaysanayso Berbera haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelkan si aad u hesho wararka iyo warbixinada halkan aan idinkugu soo gudbino aynu ku horeyna daawade wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Cali Caadle oo la hadlayay warbaahinta ayaa si adag uga hadlay xaaladda ammaan ee deegaanada Hirshabelle Caadle ayaa sheegay in shabaab culayskooda ay isugu geeyeen Hirshabelle isla markaasna ay jireen isu socodka wadooyinka Hirshabelle wasiirka ayaa sidoo kale waxa uu tilmaamay in shabaab ay isugu tageen gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaasna halkaas ay isugu geeyeen culayskooda ciidan waxa sidoo kale inta uu ku daray hadalkiisa in ay awoodi la yihiin in la gudbiyo gargaarka bini'aadanimo ee lagu talagalay in la gaarsiiyo dadka danyarta ah wasiir Caadle ayaa carabka ku dhuftay in kamaamul ahaan aysan awoodin in ay wax ka qabtaan dhibaatooyinkaasi oo saameyn ku yeeshay horumarka Hirshabelle deegaanada Hirshabelle al-shabaab waxa ay saareen culays waxaana la awoodi la'yahay in xitaa gargaar bini'aadanimo laga gudbiyo waxaana go'an isu socodka dadka iyo gaadiidka deegaanada qaar waxaana uu sheegay in waddada xiriirisa Jowhar iyo Balcad ay go'an tahay balse waxa uu sheegay in marka hore awoodda dawladnimo la isugu geeyo sidii shabaab looga adkaan lahaa ugu dambeyntii waxa uu ugu baaqay dawladda federaalka iyo cid kasta ee gacan ka geysan karta in ay wiiqaan awoodda shabaab ee gobolka Shabeellaha Dhexe isla markaana iyagu ay soo dhaweynayaan inta badan dagaalyahanada shabaab ayaa weeraro jidgal ah ka fuliya jidka dheer ee isku xira degmooyinka Jowhar iyo Balcad waxaana ciidanka dawladda federaalka dhowr gaadiid lagu gubaya iskoormaad ka dhacay inta u dhaxaysa Balcad iyo Jowhar kadib markii shabaab wadada dhinaceeda gaadiidkaasi ay u galeen haatan war saxaafadeed ka soo baxay xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa looga hadlay duqeyn shalay diyaaradaha dagaalka Mareykanka mar kale ay ka fuliyeen qaybo kamid ah gobolka Jubbada Dhexe ee koonfurta Soomaaliya qoraalka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi dhanka cirka ah uu ka dhacay ee u dhow magaalada Dujuma ee ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe isla markaana iska kaashadeen ciidamada dawladda federaalka iyo howlgalka Mareykanka ee Africom sidoo kale waxa lagu sheegay in weerarkan duqeynta lagu dhaawacay ilaa iyo 3 xubnood oo ka tirsan dhaqdhaqaaqa shabaab war saxaafadeedka ayaa sidoo kale waxa inta uu ku daray in duqeynta lagu burburiyay saldhig weyn oo shabaab ay ku lahaayeen halkaasi toddobaadkan ayaa diyaaradaha dagaalka dawladda Mareykanka waxa duqeymo khasaare xoogan geystay ay ka fuliyeen deegaano u dhow gobolka Jubbada Hoose iyo gobolka Jubbada Dhexe waxaana xukuumadda federaalka oo kaashanaysa Mareykanka gaar ahaan taliska Africom ay ka hadleen duqeynta ka dhacday degmada Dujuma ee gobolka Jubbada Dhexe duqeynta oo ay ahayd mid qorshaysan ayaa lagu dhaawacay baa lagu yiri war saxaafadeedkan 3 xubin oo ka tirsan shabaab isla markaasna ay burburiyeen xarun weyn oo shabaabka halka ay ku lahaayeen dawladda federaalka iyo ciidanka Africom ee Mareykanka ayaa qaadaya tallaabooyin dheeri ah ee laga taxadirayo waxyeelada shacabka inta lagu guda jiro la dagaalanka shabaab iyadoo si buuxda loo baarayo eedo walba oo soo baxaya oo haatan ay soo muuqato in duqeynta mararka qaar ee Mareykanka uu ka fuliyo deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka waxyeelo ay ka soo gaarto dadka shacabka isla markaana howlgalkan Africom iyo dawladda federaalka Soomaaliya iskaashanaya ay sheegeen duqeyn walba oo dhacda ay iyagu ay og yihiin isla markaana si fiijigan ay ula socdaan xaaladda iyo dhaqdhaqaaqa waxaana dawladda federaalka Soomaaliya ay sheegtay iyadoo oo kaashanaysa Mareykanka duqeynta si dhow ay ula socoto isla markaana ciidanka sida gaarka u tababaran iyo Mareykanku ay isla shaqeeyaan isla markaana duqeyntaasi ee shabaabka lagu baacsanayo ciidankaasi qayb ay ka yihiin markan ciidamada dawladda federaalka ayaa howlgal waxa ay ka sameeyeen gobolka Gado waxay ku tageen oo ay saldhig
ka dhigteen xuduudka kala qaybiya degmooyinka Beled Xaawo iyo Mandheera ee ku yaala xuduudda Soomaaliya iyo Kenya. ciidamada dowladda federaalka oo aad ugu dhawaaday goobta ay xuduudka dhanka Mandheera kaga sugan yihiin ciidanka darawiishta Jubbaland, taasi oo baqdin ku keentay dadkii xuduudda deganaa oo baqdin awgeed uga barakacay guryahooda. qaar ka mid ah dadka degan xuduudka kala qaybiya Beled Xaawo iyo Mandheera ee xadka Kenya ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in cabsi ay ka qabaan in lagu dul dagaalamo. ciidanka dowladda waxa ay ku fideen bay yiraahdeen xuduudka Mandheera iyo Beled Xaawo halka ay isaga xirmaan, waxaana ay la wareegeen oo gacanta ay ku dhigeen bay yiraahdeen xaafado ku teedsan xuduudka. waxaana dadka deegaanku ay sheegeen in cabsi ay ka qabaan ciidanka Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka halkaasi uu dagaal toos ah uu ku dhex maro. hase ahaatee waxaa jirtay in maamulka degmada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya marar badan ay ka hadleen xaaladda amni ee degmada Mandheera, iyagoo ugu baaqay ciidanka Jubbaland ee halkaasi ku sugan in ay isaga baxaan. waa markii ugu horeysay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo 4 bishan la wareegay degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ay ku sii siqaan dhinaca xuduudda Kenya iyo Soomaaliya, gaar ahaan xadka Mandheera iyo degmada Beled Xaawo, iyadoo cabsi xoogan ay jirto islamarkaana laga baqdin qabo halkaas in dagaal uu ku dhex maro ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedka Jubbaland. iminka madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa wada qorshe xoogan uu ku doonayo in ciidankiisa ay kula wareegaan gacan ku haynta degmada Bu'aale ee xarunta rasmiga ah maamulkiisa Jubbaland, ka hor inta aysan ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya gacan ku haynta halkaasi la wareegin. taliyaha guud ee ciidanka dowlad goboleedka Jubbaland General Aadan Maxamuud Ibraahim Kojar ayaa sheegay in Jubbaland ay diyaar u tahay qorshihii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab in ay kaga saarto gobolka Jubbada Dhexe, gaar ahaan degmada Bu'aale. taliyaha ayaa xuseen ciidanka Jubbaland loo dhameystiray qalabkii ay ku dagaalami lahaayeen islamarkaana shabaab ay kaga hortagi lahaayeen. sanadkan ayaa waxa uu sheegay in ay doonayaan in gebi ahaanba gacanta ay ku dhigaan degmada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe, waxaana uu sheegay taliyahaasi muhiimadda in ay tahay qabashada magaalada Bu'aale oo ah xarunta rasmiga ah ee dowlad goboleedka Jubbaland. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa doonaysa in ciidanka dhawaan ay geysay gobolka Gedo ay kula wareegto deegaano ka tirsan gobolka Jubbada Dhexe. maamulka Jubbaland ee hoggaanka u hayo madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe uu doonaya ka hor intaysan dowladda federaalka iyo ciidankeeda gacanta aynay ku dhigin degmada Bu'aale in halka ay la wareegaan. taliyaha guud ee ciidanka Jubbaland ayaa waxa uu sheegay cidna in ay ka hor istaagi karin in ay la wareegaan halkaasi. talaabadan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo dowladdu ay wado qorshe maamul cusub lagu doonayo in looga sameeyo deegaanada gobolada Jubbooyinka, islamarkaana maamulkaasi xaruntiisa rasmiga ah ay noqon doonto degmada Bu'aale. hayeeshee Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, hogaamiyaha aqoonsiga aanan ka haysan dowladda federaalka Soomaaliya ee ku kaliyoobay magaca Jubbaland, ayaa la sheegayaa in isagu uu doonayo in gebi ahaanba Bu'aale ciidankiisu gacanta ay ku dhigaan, islamarkaana isaga oo gacan ka helaya ciidanka Kenya uu doonayo halkaasi in ay isballaarin ku sameeyaan. ugu dambeyntiina maamulka degmada Dharkiinle oo ka warbixiyay dad caqabad ku ah amniga oo gacanta lagu soo dhigay. gudoomiyaha degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir Abuukar Axmed Caddo oo shir jiraad u qabtay warbaahinta ayaa waxa uu faahfaahiyay howlgallo amni xaqiijin ah oo laga sameeyay xaafado ka tirsan degmadaasi. Caddo ayaa sheegay in howlgalladaasi ay fuliyeen ciidanka booliiska Soomaaliya laguna soo qabtay 2 nin oo dhac ka geysan jirtay degmada Dharkiinle ee gobolka Banaadir. sidoo kale waxa uu tilmaamay in gacanta lagu soo dhigay hubkii ay dadka ku dhici jireen xilliyada habeenkii ah. howlgalkan lagu soo qabtay Burcadda ayuu sheegay in uu amray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish. ugu dambeyntii wuxuu carabka ku dhuftay gudoomiyaha degmada Dharkiinle in ay sii wadi doonaan baaritaanada lagu xaqiijinayo amniga islamarkaana lagu ciribtirayo kooxaha Burcadda. ammaanka degmada Dharkiinle ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ahaa mid aad u liita, waxaana ka dilaacday kooxo Burcad oo xilliyada habeenkii ah boob iyo dhac u geysta dadka shacabka ah, walow maamulka degmada Dharkiinle uu sheegay in ay bilaabeen howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo. guud ahaanna warkii oo idinkala socoteen janalka madasha wararka waa inaga intaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe si aad u hesho wararka iyo warbixinada halkan aan ku soo gudbino. like iyo sharna ha ka ilaabin.